الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yiri waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqadeediyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawaylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir ma aha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tagaya deedna uu ka soo celinaya haddana uu la tagaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinaya baa la yidhi salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinuu bisabri wasalaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedeeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhaara loo jideeyey istaciinuu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxeehan ku raaxaysanna xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaala saddex ba aniga la jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa la jeclaysiiyey atiib waxa wixii uduge udgoon والنساء يا هوينكنا ولا جعليسيي وجعلت قرة عيني في الصلاة halka indhahayga qalbigaygu ku qaboobayana salaada laga yeelay buu nabigu kaleey salaatu wasalaam marka saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyaku in salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid aha ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanay saad ku heshay adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa وحيد كابت من أجل الصلاة ل20 سنة وتنعمت بها 20 سنة بويري صلاة الروح ديدا بدن كيغا حقيقة ديدا إنان قارو لباتن سنة أيان نصو تبعي بنصو دالي هذا لباتن سنة وكل راح يستابوا لصلاة داس كيفية الصلاة دادو تكتنوشك بالغيري ويقول إنما يهونو صفقة مركا قلبوا لي إمامك عن قداشي سيستاقين صلاة حرنايو وحان استحضار أن كسو حاضر صدا قلبي قيقا يوم يقوم الناس لرب العالمين وحان كسو قالا صفقا مسكيد كأنجوغا إنو يهكي محشر كبنك قيامة هل كاسان مركا كحدابو لصلاة إنان إلهي يرتاقن هاي بصو حاضرية اعبدوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عابد سي واحد أديكو هادو جيدود أركيسو حداد أديكو أركين إلهي جل وعلا يساقكو أركايا وحولي مركا وحان كفكرا مركا صلاة دحديدة كي حق مدقيقي حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري وحسابتا لقوقو يري صدقا هدانا كي بدحديقي حقي والله قاضي كي يقدم بيي والله قاضي كي يقهر ريي والله قاضي waxay salaadu ii dhamaata aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday mahsharkii banka qiyaamaha kaliga baa ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doonta dareenka iyo shucuurta baa salaadeeda ku dhameystaa buu yiri ay raisli ninkuna dareenka ku dhameystaa masaajid anagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha واما ان كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد امين وركعتي الا بعد صلاه العشاء انا واكو جرا صفقه هره
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo walla bilaawnu midhaan walla waa ku darray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك يقفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يري رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يري رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asaga dhimashada u diyaar man minna la yakraha al-maut adka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida nolosha jacayl ashyaada materialka iyo lacagta iyo amalka saalixa qalbigeenu haday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanayaa wuxuu leeyahay lacag hadaad hayso mashaakilka way xalismaysaa خالق يا مخلوق أنا ما أنتم مدوا كلا قرن لا هيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمال كلا إنه وجست إلا حق سمو يعني وما شيء إلهي أدونك وكفير يا أبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونيكل ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسدي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب دعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك هو مد كلية بحق قلبك مد لوقت دقي وحمنت كلية جرك بنا هذا كما مشبه رسولكم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك ابو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك معوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كدعي مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاس ما أنت أي بكوتي إنهني وحي الربان بي إيغيان دقهني وحي مقلان بي دقيسانيان قعمهني وحي الربان بي قبانيان لغهني ماشي الربان بي آذيان دقالهني ماشي الربنا كبحينينا هذا الكيني ماشي وحن ظنكو هاللينا وحن ظن حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنة من قسل أفرت السنة من كفتمن وحن سوغار الرق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لا جوغو عن اسكو ملينيي إن أنا نقول عن اسكو ملينيي وإمامك وخير التابعين ويان وعالمك تابعين توقو علم بناء ويان وحا هذا الكالي صد سنة ما نقسلم بويري أفرت سنة هذا الكفتما إيقا مصوبحن وحا سوغار أقوام مركان لا جوغا نكتو دا جوغانا أنو عن اسكو ملينيي إن أنا هيتوب وحسن البصري نكا صداقي hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raali ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ihfad illaha yahfadka ihfad illaha tajidhu tujahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culamadii salafka kamid ahaa
120 jir buu noqday daadiis ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxa lagu yiri da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydo way buusbuuseen way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu yiri ilaahay aragiibu quwadii aragu ilaaliyay buu yiri nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku ilaaliyay buu yiri nicmada maragtaani xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii iyo xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfad ilaaha yahfadka ba ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinay inagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeyahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa ka yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimid waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimid markaasuu magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adood ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baan igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahee xay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey xay naga buuxa dadkan soo socdo dhan waa wada bulaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyaa kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaasana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay